وهوية la silcaysa 9 caruur oo ay dhashay sababtuna waa inay la nooshahay xanuunka HIV aad ayaa nolosha loogu takooray waxa weeyaan gurigan waa guriga shanaad ka soo kooro marka gurigan ku jiro dariskaygu ma ogaa hadii markay matalan ogaadaan waxaan ku ori halka dhibaato hadan ay raacaysa gurigan ka soo baxo hore waa la shiidi jiray artida dad baxaan ee ilaadana maxaan u shiidisana waa lagu caay jiray hooyadii iriska qabta loo dhig jiray daris waliba isku daya inaan ka aqaxo waa la qaxiyaa booyadii baba lagu daray lagu hawshan booyadii dawladdu way ka warhaysaa xogta sahri sheegtay ee ah ardayda faquuqa xanuunkan awgeed dugsiyada looga soo eriyo way jiraan dad badan oo caruurtoodu iskuulka tagto oo laga soo eriyay waayo hooyadood ama waalidkood ayaa la nool darteed marka komishanka ahaan waxaan ka hawlgalnay inaan maamulayaashii dugsiyadii wacyigelin badan siino isla dugsiga khaasatanna aan maamulihii la fadhiisto oo dib loogu cesho markii ay fahmeen si ay ammaan ay u hesho waxa ay dhawaan sahri u guurtay cirifka magaalada ugu shisheeya ولسه ويعبسي قبتها هذا والله ما كان هيلي كرايو مثلا أميلا نوسي كورو وحنا كل وان كسي كور لعبة ميبا نوسي كور لا ميل كونا ما نتنا وسي بحلا ما قالوا كنا قبيس ملينا كسي فرد دموية بالشدة هذا يا هدي أنا وحق لنا وتري قلبي جاي هو دعوة وأي تاي وبتكيا جاي دعوة أنا ونقتفا مركها ندايا بالشدو اللي بعتذر وهايا هنقدايا 6 kun oo qof ayaa lagu qiyaasaa Somaliland dadka xanuunkan qaba laakiin dawada waxa qaata 1700 oo qof oo kaliya inta kale waa in aan sugayn iyo inta badan oo ka baqanaysa faquuq hadii ay dawada doontaan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo BBC u waramay ayaa u digay cid ku tacadida dadka xanuunka la nool waxaan bulshada Somaliland leenahay dadka xanuunkan qaba dad xanuunka iibsaday maaha qof dhibaataysan in la foqoqo oo maartay la dagaalamo waxaan qabaa in dambi qaran ku jiro loona dul shuruuc baad runtii laga saari doonaa loona dul qaadan maayo dhakhaatiir iyo sharci yaqaano aan la hadlay waxa ay qabaan wacyigelin intan ka badan oo xitaa dugsiyada lagu dhigo iyo xeerar qabta qofka buka oo laftigiisu halis geysan kara iyo kuwa tukoorayaba in la sameeyo Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa